عبتوي هذا عبتوي عبتوي كل شيء ما تمشي عقلي مع عقلي ما تقبل إنما حلو سمبوسة دوس كده هو كيد ما كاقل عبتوي ما تعرف ما كاقل عبتوي ما تبنت عبتوي stupid inuu buleeyay maxay saas ku guli wuxuu nin ayaan bayraanaya nin ayaan bayraanaya waxa ma diyaa anaga ayaa baarnaa waxa weeyaan ninkan horta waa bilaa dhaqan gabigiisba waa bilaa tarbiyad kale wuxuu u baahan in dib iskuul loogu celiyo dhaqankiisa tarbiyadii la soo baro absolutely waa marka koowaad marka labaad waa in la baraa qaabka loo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa baniidii salaamay saaxiibay dabcan waan filaya waana rajaynayaa inaad nabad qabto meel baad iga daawanayso sidoo kale alxamdulilah anaguna waan nabad qabnaa aad iyo aad baad mahadsantahay sida aad youtube channelkeena yaxya cabdi aad ugu xirantii mar walba waan idinkaga mahad celinay dad qiimo badan dad qaali ah dad sharaf badan qalbigaada igaga taana allah ya ciisag runtii waxaan rabaa inaan crash ka bixiyo ninkii iilayar ahaa oo xaqiiqatan maalmahan dambe kasii daraya xaaladiisa waxaad madaba maalinta ka dambaysa badowga inuu sii baxayaa moodaa nacaasi waa la yidhi wax doqontu waa la yidhi waxaan lagu kaftan bay kaftan ka dhigtaa waxaan lagu ciyaarna ciyaar bay ka dhigtaa waxaa la farakacyaar hore fatakacyaar dambe leeyihiin waxa weeyaan odagan sida lii fanaan baad oo baadar koobiyood ku nooleed dadka shacabka Soomaaliyeed ma kula fanaan baad koobiyood ku nooleed arsaaqada koobiyood quuta waxaad aaminsan inaad arsaaqad kale baheelin macnaha muuqaalkan imkaan rabaa inaan rash ka bixino war hooyo sidoo ugu meelin hooyo kuma imkaasna maalmaha dib social media waxa ku soo batay in hooyo uu iska cayno isaga nin kale oo paracetamol anu yarka kala xamoodin inta ka caqli baday mood baynu isaguna ka siidito ma waan moodin ba balans la soo waxa waaye dad baa noo arkay raadul eeg ila dhageysiga meesha mujtamaca Soomaaliyeed magac ku leh marka hadii magac la leeyahay lama neefsan karamiya lama qosli karamiya lama baashaali karamiya lama baashaali dadka lama qarxaysan karo dadki wax horta aqligaaga ku siiyay paracetamol aqligaaga ku siiyay anu waxaan ku wadaynaa intan ninka garaas sareeyana tay ninka aqal badanta inaa tay baan anu ku haystay markaa hore laakiin kuma moodin inuu maskaxda eber ku tahay oo qaybtiisa ninka maskaxda ku maqantay application uu ka maqayo kuma moodin ba markaa inuu qofka dib magac leeyahay ma neefsan karo miya ma hadli karo miya okay qofka neefsanay ee hadlaya ma waxa uu ku neefsanay oo ku hadlaya inuu hooyo caayo ma waxa uu ku neefsanay oo ku hadlaya inuu meel la soo fariisto hooyada waxa ku sameey adoo qosasho adiguna sidina yaro la soo faray ma qasaas qofku ku neefsanay markaa is that what you mean Francis yaaran magaciiba Soomaalidu waa Soomaaligu caan baati qofkiiba dilugu caan ma noqotay magaciiba wax kale ku aamisay Francis yaaran taasana ka sheekay يعني سكامرة كنت aniga waxa la idlow faantaha aytaman inta lidii caaya waliba dabada hooyadin aan ku baylaarka horta qofka hooyo caaya waa isaga qofka wajiga tirtirale ee wajiga haaraha la weeyo qofka hooyo caaya hooyo waa tiina dhashay horta wallaahi billahi tullaahi hooyadii adiga ku dhashay dulqaad ma bahdii wajiga xume haaraha iyo fuuqa weyn bay soo siisay naas ay naaskeeda ku habtay wada caydeen hooyo maanta cay uma quudeen ba waxa kaloo naas madaxweynaha magaasa sarkaalka moodo hadiiba hooyo ay dhashay wallaahi inay hooyadaas caay lahayn ay ma istaasho gobbaad hooyo naas baa ku haleelo baan ku leeyahay si wan fiiri adigu ku waalkaaga cayna صح maraafi adi may luuqa oo gaali Eegado. si tu ku soo inaan yaabi jirin baa ilaa waan yaabay waxa weeyaan qofka madaxa daasada leh horta maalmaha social media gabigiisa waxa moodaa inuu far dheeraada ku yahay adeero koobigaaga meel laga joogo leeyahay gaajad ka sheekaysan 60 ka markii lagu arkaan hada ninkaas waa kaajoonay xil uu dhargi doono wallahi way iga tinayna anigu weyn kulay idinka iga soo warrami doona xil ninkaasi dhargiyo idinka Soomaaliya ka soo warrami doona warka ma xil ninkan dhargiyo oo uu dhargiyo oo alxamdulillah imka dhargi ila markuu 60 ka gaajo ka sheekaya gabigiisa waa maradii gaajada horta xag daba soo gabigiisa waa markuu idab daro ku darsan wala balaw hooyo ay buu ku darsan wala martade waxaan kafta gelin buu kaftan ka dhiganay wala bar afar hatta hablo Soomaali sidoo u caay hadda aad wadnaxaysa imka ku soo wada hayga degdegin hal mid baan oranaya war qofku markuu caan noqdo ee uu magac yeesho ee uu sumcad yeesho uu sharaf yeesho intaas oo shakhsi baa maanta sharaf leh dadka way la kaftamaan dadka way la hadlaan qofku wuxuu waraystaan macnaha hadii hal qof oo xun uu kugu dhago taamcaleemayna Soomaalidu kugu dhigtay hadii hal qof uu maanta ku soo yar maago taamcaleemayna Soomaalidu ku soo maagtay ku nacday hadii aad caantay taamcaleemayna adiga lagu dhageynin inaad adigu khaldamin taamcaleedu maaha ma khaldama waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala yarka kamerada waxa rabaa in hal mid uu yahay ragu magaca guud bay ka sameeyeen laakiin aqliga la isdeeri garaadka la isdeeri garashada la isdeeri aqoonta la isdeeri tacliinta la isdeeri hadii hankaaga adiga uu taagay qofku markuu magac leeyahay haduuna hadli karayni waxa ka daayay waxaan ka daayay waxa balaas yuun noodayaasa dadka
بعيدك ولا كي أنت نسيت وعاية أديك ولا أرك استاق اسكو انا والله يعني كذا بريتل ميل سو استاغيا hablaha sharaftooda hala dhowr hablaha sharaftooda hala ilaaliyo tucaayana wayna Soomaaliyeed ku xisaabtan hooyo reer baadhal ku xisaabtan tu ereyga u qoray hooyo reer baadhal ku xisaabtan برينا حكلا صور فسنة وين Soomaaliyeed wayna walaashida sida hala dhaafo kiis lama hanta show ay ka tay oo ka raadinaya Soomaalida magac sidoo magac u helaha sidoo wax yar fiis u helaha sidoo loo taagan lahaa sidoo loogu soo qori lahaa ma sha Allah buu niina wanaagsan baatay khiyaar baatay أنا هادي تشجيد سيد اللي يسوق لها الحمي كل في هذه النساء تذكروا كلا وعلى يفد إلهي وح لعيا وح وحهم ضمر يهوين لعيا يفد إلهي وحهم صوته أي تاي والمرة ويكون المرة ويكون حي أول بيكون شيء أول بقى على هاي ستكون شيء تذكر يمكن عايزة كود على عايزة وقرص محل يدو كلو قصو قايوين بليه قرنا يا ولا شيء وين أنت هذا وين هذا الشيء إيه لا ندير أنا هاي لاندير maxaad ku noqotay mid hablaha ayada laandheer ku noqotay laandheer aad sheeganayso bal waxa aad ku noqotay gidabigi waxa leey doqoni garasho malaha ee gargaraashay leedahay ma garatay wallahi billahi ninkan maalinta ka dambaysa wuxuu sii gaaray inuu hablaha heer u sii caay runaanti inta muuqaal qarsoon baa ka badan qof buu caayaya waxa weeye afkaaga waxa lagu sameeyay hadal khayr qaba ku hadal ama iska aamus هو عايمدي كيدو وريا هو حمام جيد دولي باتي هو حمام جيد بحب انت كانوا عايو بيدك يلا جيدك عبتوي انا عبتوي عبتوي كل شيء ما ما تعقل مع عقل خلاص انا بحال عشان بوصل دوس كده هو كيد ما كاقد عبتوي ما تعرف ما كاقد عبتوي ما تبت عبتوي stupid ina bulay maxay saas ku guli wixii nina yaabin bayraanaya nina yaabin bayluwaya waxa ma diya anaga yaa baaragna waxa weeyaan ninkan horta waa bilaa dhaqan gabigiisba waa bilaa tarbiyad kale wuxuu u baahan in dib iskuul loogu celiyo dhaqankiisa tarbiyadii la soo baro absolutely waa marka koowaad marka labaad waa in la baraa qaabka loo ixtiraamo dumarka marka saddexaad waa inuu bartaa dumarku waxa ay ka mudan yihiin iyo waajibka ay ku leeyihiin iyo ixtiraamka ay ka mudan yihiin iyo meeqaamka ay ka taagan yihiin iyo meeqaamka dadka Soomaaliyeed ay ka taagan yihiin waa ragii hore ragii hore inay gabadh afkooda u kala qaadaan iska daayay kelmad nuju afkooda uga miisan oo inay gabadh u qooraan asbaabtii sababtuna waxay ahayd dumarku meel sare ay agtooda ka taagnaayeen sharaf ay agtooda ka lahaayeen sumcad ay agtooda ka lahaayeen karaam ay agtooda ka lahaayeen waxa qosqoslay hareerihiis ku hareeraysan waa rag hadoo fiirso waxay kula sheeganayaan raganimo waxay ku leeyahay rag baan kula soo fiirnay ragaanay anoo nin raga maxaan raga ka noqotay inuu soo sheey baaradu baahantabe ciidad kale kugu jirtay waxa hortaada lagu caayay uu leeyahay maxay isgali waayna Soomaaliyeed kow waxaad u qosay oo hayso aad ku qoslayso waa ina Soomaaliyeed oraadii kelmad aad ku qoslayso waa in leeyahay maxay isgali hadeeg halkaasaynu maraynahay Soomaaliya idu ku weydiiyay halkaasaynu maraynaa dhaqankeena iyo tarbiyadii iyo asluubteena halkaasay maraysaa bruto kuwa ka dambeeya ama kuwa u dhalaana maxay ku hadlayaan isagoo bila tarbiyadii sidoo wadiyo ilmo u tarbiyan karaya sidoo wadiyo ilmo u rabaayeen karaya وسؤال isweydiin u baahan jawaabteedana u baahan qofkii weynaa haduna asluub lahayn bila akhlaaq iyo bila dhaqan yahay ilmayna sidoo tarbiyada u bari karaya iskama daa ilmo kale iyo kuwa kale iskida kuwa isagoo u dhalay sidoo tarbiyan karaya haw Britain markay weynaadaan position kaas iyaguna soo istaagaya وهدي أنا إمك تربية وناجين المهنة وتربية المهنة وحام هالنجيل لجو أبابي لجو تربية ذيوية هذا المهنة تربية وناكسن أتكسر تربية اسمه كويري بريت المكوين أنا تربية وناكسن أيوم مجتمع مع شعب كأولا رقمية ولا نوري كل رقمية أدو وارميس والدنيا ده شوق ميس وقف الدنيا شوق يا مجد هذا أدو كهر مرتو بركان ريما عنا دو ضد مرة مين أيان درا هين مين وحوش نما هين مين الدولي نما هين waxaan kugu soo gabagabeynaya hooyo caymalaha yarka kalena waxa leeyahay aniga aqliga inta dhamaan anigu moodayo wax moodayn nin kale leena anigu ku haystay ilaahay waa leeyahay adan idii salaamay saaxiibyaal yaxya cadooyda waqtigii waayiba haydii samaadaan hooyo caymalaha yan waalidka lacay